Tani waa Shushu Cabdalla. Waa gabadh ka caan ah baraha bulshada siiba application-ka TikTok. Waxa barteeda TikTok ku xiran in ka badan 1 milyan oo qof. Sidoo kale Shushu Cabdalla waa qofkii ugu horeeyay ee Soomaali ah ee Soomaaliya jooga ee gaadha darajada 1 milyan followers ee TikTok. Ama waxaan oran karnaa waa inanta labaad ee gaadhay darajada 1 milyan followers ee application-ka TikTok. Shushu Cabdalla waa gabadh isku darsatay qurux, asturnaan, xishood, dhoolla caddayn iyo dabeecad wanaagsan. taasi oo sababtay in ay soo jiidato dadka badan 1 milyan oo qof. Shushu Cabdalla magaceeda oo saddexan waa Shukri Cabdullaahi Caddo. waxa ay ku dhalatay magaalada Muqdisho halkaasi oo ay ku qaadatay dhammaan heerkeeda waxbarasho. Shushu Cabdalla da'deedu waa 23 jir. dhererkeeda waxa lagu qiyaasaa 1 mitir iyo 75 sentimitir. waxa ay taageertaa kooxda Liverpool. Shushu Cabdalla waxa ay aaladda TikTok soo biirtay sanadii 2019 halkaasi oo ay ka bilowday hayaankeeda guusha. Shushu Cabdalla waxa ay dheer tahay dhalinyarta kale ee kula jirta baraha bulshada taageerayaal aad u badan oo ay ka mid yihiin fanaaniin caan ah, mas'uuliyiin, waayeel iyo dhalinyaro aad u tiro badan. mar ay safar ku tagtay gobolada Puntland, Shushu Cabdalla waxa ay la kulantay wax aanay ka filayn kadib markii boqolaal ka mid ah dhalinyarta reer Puntland ay u sameeyeen soo dhaweyn aan caadi ahayn. marka ay mid oo nala soo dhaweeyay farxad aad u weyn aan dareemay. dad walaalo oo qalbi nadiif ah joogan reer Puntland safar leeyahay. sidoo kale mar ay tagtay magaalada Nairobi waxaan guud ahaanba u kala hadhin soo dhaweynteeda dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi kuwaasi oo ku maamusay xaflad heer ah iyo hadiyado aad u qaali ah. Safia Jewelry وهديدان iga gaarsiin dhahday gabadheeda u tahay. sidoo kale fanaanka weyn ee Sharma Boy oo ka mid ah taageerayaasha Shushu Cabdalla ayaa markii ugu horeysay hees u soo qaaday aktarada weyn ee Shushu Cabdalla. heesta ayaa sidan u dhacaysa heesta 1 milyan ka badan gaarsiiya darteeda heesta 1 milyan hala gaarsiiyo. Soomaali galkeeda qaali gabadan waraliyo Soomaali midabkeeda qaali marwadan waraliyo وشدنا سيدا شوشو سيمنا على يدمنا على قفتك ورحنا. Shushu Cabdalla intii ay ku jirtay baraha bulshada waxa markii ugu horeysay la ogaaday wiilka ay xiriirka la leedahay kaasi oo lagu magacaabo Kambala. wiilkan ayaa isna ka caan ah aaladda TikTok kaasi oo degan ariga Mareykanka. qof baad tahay qulubtayda deeqay qaran ragba kaan ka qiimeeyay aan ka doorto qoraalka magacaaga qalbigayga ku qoran qaadir baan nasiib iigu kaa qadaree qumanow aan Kambalo cishqiyo qadarin baan ku hayaa. Kambala cishqi iyo qadarin baan ku hayaa. Okay, maxaa fahantay? Thank you. دم إتكموتك دحال ما يشجعلك دفت أي دمرت الدنيا ده دايم أنا دفت هذا كيانية أنت دو توانا ده دحال مسكسينا كذا أو كوجعله دمس كوري ما أدنى
sidoo kale Shushu Cabdalla waxaa dhawaan la filayaa inay ka degi doonto magaalada Hargeysa ee dalka Soomaaliland halkaas oo ay ku leedahay taageerayaal aad u tiro badan. isku soo wada duubo Shushu Cabdalla oo qof isku darsatay natural color, kalsooni iyo dadla dhaqan wanaagsan. waxaan leenahay madaxa ay noo saaran tahay haddii aad ka mid tahay taageerayaasha Shushu Cabdalla waxaan ka codsanaynaa inaad videoga share tiraahdo, sidoo kale like tiraahdo, sidoo kale subscribe aad noo saarto channelka aad iyo aad ayaad u mahadsantahay.